innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waaranu nafteeda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxay ka galay buu ku odhan ku salli rasuul حسد كنا وصفة قابيل وولالك هابيل وكدلي واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين ولا ليها يعني آدم بعد لبده ذبا لكن برجع ما دام بن آدم وترمى حواء مركع على الشيء الماء وقلبا لبا دليس لبا متاني دليس ويليا قبر الإسلام الشيء لبدا كوحكتو يكون ويليا قبره أي إسويدار لسكوكو قورين يبالي اللي بن آدم كترمى مركز مركا قابيل وحا لدلتي قبر قرح بنايد هابيل وحا لدلتي قبر فولح ميد بالي markay afartoodii barbaareen ee weynaadeen ee kobceen ayuu aadam ku yiri waa hagaaga haabiilow mataanta qaabil guurso waa sida curfiga ugu ahaa shariicadoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabil guurso marka qaabil baa yiri may aniga ta ila dhalata qurux badano ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yiri yani wixii fiicanba ana igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yiri may sharcigeena kala nooma ogolo may halka sheekada oo mareysay mufassiriinta qaar kood ay qoreen aadam alayhi salaam wuxuu tagay makku tagay dadna qaabil iyo haabil baa isku hadhay labadoodii baa marka waxa isku bandhigeen ay yiraahdeen hadaba waa yahay sadaqad hal la baxno keena sadaqada laga aqbalo ha guursada gabadha quruxda badan leh إلا قابيل تي هابيل لا دلته فول حميد وسك ديده inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalatay quruxda badan leh haabiil u dhismaayo ana guursan buu leeyahay labadoodii marka waxa loo bandhigo la yiri sadaqad la baxa nina wuxuu ahaa beero qodaal beeruhu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin falaaxo bidirka iyo zarac dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yiri xoolo dhaqato kana beertiisa wixii ka soo gacay buu halka ku uriyay kana xoolihiisa neefka ugu qurux badnaayay shishla ayuu xagga soo dhigay baa la yiri marka sadaqadaas in la aqbalana waxa lagu garanayay samada waxa ka imanaysa naartaas marka sadaqada la aqbalay bay ku dagayso way gubayso way baabiinayso marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo dagtay baabiisay baa waa neefkii tii qaabil meesha uu ku uriyay shaciirkii iyo wixii dalcunay zarcaha naartii waa ku soo dhici weyday marka qaabil basiixana qoyiri haabiil oo si aad laga aqbala oo in la iga aqbali waaya marka haabiil baa ku yiri walaalkii da ilaahay dadka Allah ka cabsiga loo sadaqada ka aqbala buu yiri deewaan ku dili da aday ku taallaa buu laakiin anigu hadad adigu gacanta ii soo fidisid anu ka gacantayda ku qaaday ma yihibu ka yiri deewaa ka dilay marka quraanka ilaahay ku sheegay فقتله فأصبح من النادمين وحلي وحبني آذن حق در لو دلو oo dhan ila qiyaamaha ina aadan ka hore dhiiga daadiyo dhiigi ugu horeey xaq dar ninka ku daadiyo qaabil buha dambi buu isaguna ku leeyahay waxa bin aadan xaq dar dhiig lagu dilay oo dhan dambigana muxuu ka dhashay xasadkuna ma ogolo shariicada islaamka xasadku waa maxay hadii la macnayo waxay ka dhigan tahay ilaahu nicmadan hebel aad siisay uma qalmee maxaad u siisay ma ilaahay baad markaa ka aragtay fiican tahay dambiga xasadka lagu leeyahay xasadku marka dambe wuxuu geeyay inuu qaabil walaalkii uu ku dhagaroobo lidaalika dadka baayac mushtarka sifada xasadka waa inay ka fogaadaan kii shalay suuqa soo galay baa laga yaabaa inuu ku dhaafo adiga haysura sidoo ii dhaafay aniga ilaahay baa u qoray isaga yaa u qoray ilaahay lan rizqu waa munqasim wala qaybiye
الدنيا لغما ترتمي دينتا لغو ترتما خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا لبا خصلدود قفك نولشيسا اي كميتا هاي كجرتو إلهي ليسك الشاكرين الصابرين تأيو كدرا من نظر إلى دينه من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر إلى دنياه إلى من هو أدنى منه نيكا مركي دين نقطة ككسر يا إيغا إيكو ضيدا الدنيا مركي نقطنا إيغا ككهوسيا النعمة إلهي إساقو سيهوسو إيغا كو شكريا لابدا خسلو نيكا لبا الليلي إلهي جل وعلا وحو كدرا شاكرين تي صابرين marka in adduunyo la iskaga daydo oo walaalka adduunyo lagu la tartamo oo adduunyada lagu xasdo lama ogolo waxa la ogol yahay in qofka diinta lagu la tartamo ka diin fiican baa la eega deedna waa lagu daydaa yaa la yiri waa lagu daydaa salaada shada waqti waad u tukanaysaa waad baxaysaa laakiin ninka sunnaha ku daraya eego bisha ramadaan baad adigu soomaysaa sunno kale ma soontid ninka shawaalka ku daraya eego ku dayo acmaal baa loo baahan yahay lagu tartamee ashyaa in lagu tartamo maaha mid walba arsaaqada ilaahay intuu qoray buu helayaa in kaloo ziyaada ma helayo kasbiga arsaaqada iskuma xidhno dad baa kaa shaqo badan adiga laakiin kaa dakhli yar nin baa adiga kaa shaqo yar laakiin kaa dakhli badan كوليغو صباحدا لحدا صباحنimo shaqadu bilaabo ayuu lixda maqribka ka soo dhaadhaca isagoo naftiisu ay nafba ku jirin ba waxa uu qaadanaya wax yar oo leeyahay $15 ama $10 laakiin injineeradu ka warrama maxay shaqeeyaan injineerku ma soo shaqeyn saacad laba saacadood waliba xafiis qabow ku shaqeyn xafiis qabow oo biyihi u yaaleen oo halkan shaahi u yaalo oo ku sheekaynayo laba saddex saac oo shaqeyn waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornay imisa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta qalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo way cabaan dadka walwalan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan dadka inta shaqeynaysa 10% maaha 9 kalena way cuntaa